سلام بعديد إلهي سبحانه وتعالى مهدله نبض halkan nagu ahaysiiyay sharaf kayaga iyo dadnimadayada noo ilaaliyay oo nagu ihaaneeyay inaan maartay ilaalsano runtii muddo dheer oo halka ciidamadu ay ku sugnaayeen maamulka degmada waa la socodnay qalbi ahaan iyo wada ahaanba waa u joognay waana la joogay inkastoo aanan muddadii hadda halka la joogay aanan imaan markii runta la sheego laakiin haddana waxa ahaa qof oo hawsha gacanta wax uga haya intaasna maartay duca iyo garab istaag iyo wixii aan qaban karana qabanaya ma ahaa maanta ilaahay keena soo gaaray xaaladuna weli ma dhawaa waxaan ku faraxsanahay ciidamada difaaca halka kaga jira oo waqtiga dheer ku qaatay oo danahoodii u xuray dadkooda inay ilaaliyaan sharaftiisa iyo deegaankiisa iyo diintiisa oo ka ilaaliyaan diin laawayaasha ka ilaaliyaan aad u mahadsantihiin maamulka degmada u dhabar adeegay ciidamada inta leeg iyo culayska inta leeg inay hayaan iyagana sidoo kale uma hadnaqayaa waana xilligii saa la socotaan argagixisadii meel kastoo Soomaali joogto ugu soo jeestay cid walba rabto in deegaankeeda iyo dalkeeda iyo ka difaacdo diinteeda ama ka xoreysaba marka dib u xoreyn ayaa lagu jiraa diyaar garowna mar waa la geli doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo waxaan rabaa inaan mar saddexaad iyo mar labaad idin mahad celiyo haddana deeqdan geelan dhabarkayga taagan ayaa waxaan rabnaa in ciidamadu ay maartay qada ka dhigtaan maanta ku qadeeyaan waxa ila socday maayirka hore degmada Gaalkacyo xilsigiisu barre xogahayii degmada Dhuusamareeb Cabdicasiis Faarax Garaas ayaa waftiga ku ahayn oo ugu talagalna hawshan inaan maartay halka wada nimaano marka aad iyo aad raba inaan ka mahadnaqo kuna wareejiyo deeqdan geela ah in maanta ciidamada ay ku qadeeyeen hadii alla yiraahdo ilaahay baa subhanahu wa ta'ala mahadsan waxaan ka codsanayaa sida u soo shaqeyseen oo difaaca iyo nidaamka ugu soo jirteen inta aan ka dhaqaaqayno in meesheedii difaaci la laban laabo iyo hawsha haysan hadii alla yiraahdo wixii ka dambeeyana waa soo imaana markii diyaar garowga la kala hadii alla yiraahdo xildhibaanadii soo waa maqan waa wax la socotaan in dawladda dhex ku maqan hawshan awgeed si loo dhaqaajin lahaa war baan ka sugaynaa hadii alla idmo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo galmudugna war baan ka sugaynaa waana isku tagi doonaa hadii alla yiraahdo hawshan waa sida hadda tahay waa ka bedelayna hadii alla yiraahdo insha Allah kariim adoog dambe oo dhulkan fadhiyaya ma jiro dhulka dhan inta laga saaro in laga xoreeyo oo laga bixiyo ayaa Soomaali u soo jeesatay madaxweyne qaranka Soomaaliya ku dhawaaqay mana ka dambeynaysa hadii alla isxaab xabasho iyo waxa lagu jira isdiyaar gareyn maahane ma jiraan dabac iyo seexasho ma jirto marka aad iyo aad